asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha dhammaan meel kastoo joogtaanba iyo mar kale iyo muuqaal cusub kusoo dhawaada waa janaladeenii som I t iyo fanolo janalba mar walba waxaan idiin soo gudbinaa macluumaadka soo kordhaa iyo waxyaalaha ka yimaada magaaladan deganahay. waxaa aufudin cols zondag 29 September 2024 taydka uu yahay deertiin u ah axadda 29 September saacadda 1 duhurnimo. waxaa ka bixi doonaa magaalada Nijmegen koorso loogu talagalay ama wacyigelin loogu talagalay dadka Soomaaliyeed oo ah inay maaragtay loo soo bandhigo inay balqaabkan waddanka ay u degan yihiin sidee caruurtoodii iyagoo diintoodii ka tegan ayay ugu tarbiyeen karaan. waxaa laga yaaba waalidiin badan inay dhahaan annaga owlaad waa dhalnay waa naqaanaa saa caruurtu korino marka haddana loo sheegaa. dabcan arrinta noocaas qofka markii uu iska dhaadhiciyo arrin sax maayo. qaabkaad waxu korayso waa qaab Soomaaliyeed simple warkoo kooban. qaabka cunugaaga iskool u aadaa subax kasta iskoola u dirtaa dadka noocaas ku doodaya rabaa xujada inuu ku ogo. haddaad iskool u dirto cunugaada dhaqamo kale soo xambaara wuxuu ku dhahaa markii fringe spele caruurta kale mala soo cayaari karaa, meel hebel ma aadi karaa, meeshaasa brogram ka jira ma aadi karaa. waxyaalo badan oo waddanka jirin ayaa halkan jira. ilmaha dugsi qur-aan iskool ku aadi jiray waad ka warqabtay, laakiin halkan marxalado kale oo tiro badanaa jira, sportiga jira, howlo aan dhammaaneyn oo u malaysa shaydaanka inuu gadaal ka fadhiya. waana ka fadhiyaaba ilaahaba yiri maahin oo fii suurati maryam shayaadiinta waxaynu u dirnay dadka maaragtay gaalada. marka si kastaba noqotoba marka waxaad u baahan tahay inaa koorsadan kasoo qayb gasho. haddaad u imaada koorso gaar ah oo maxaa u imaaneysaa koorso gaar ah waalidiinta Soomaaliyeed ee degan magaalada Nijmegen iyo nawaaxigeedaba iyo waddanka Holland qofkii daneynaya inay wax ka bartaan ama inay wax ka ogaadaan qaabka korinta caruurta waddanka Holland iyo helitaan inaynu helno miisaan u dhexeeya labada dhaqan. miisaan u dhexeeya labada dhaqan, dhaqankeena Soomaaliyeed iyo dhaqanka waddanka Hollandeeska leeyihiin, dhaqankaada iyo qaab dhaqameedka casriga ah ee qiimaha ku dhisan. marka meeshaad imaaneyso waa lokaasigaas insha allah. wixii kaloo maaragtay warbixin ah mar walbana informationkan videogana ka daawaneysaa taleefonka iyo meesha kala soo xiriireyso howshaas insha allah. waa midaas waa luuqada Soomaaliga. come to a special course for Somali parents to learn about education in Netherlands and that finding of the balance between culture and modern values. halkanaad imaaneysaa waa sidaan kuusoo sheegay waalidiinta Soomaali haddaad tahay koorsadan kasoo qayb gal adigoo ku baranayo qaab dhaqanka labada waddan iyo maaragtay baalansiga u dhexeeya labada dhaqan ee maaragtay modernka ku dhisan. adresska waa saa hore kugu soo sheegay. lokaasigaad imaaneyso waa halkan. maalinta waa maalin axad ah oo waa la joogaa xaafadaha inta badan. bisha waa 29 September waa maalin axad ah, waa usbuucan ugu soo foole. waqtiga wuxuu noqon doonaa 1 duhurnimo. wixii information dheeraada taleefonkaasa kala xiriireysaa ama websitekeena www.ssgn.org oo loo soo gaabiyo Stichting Somalisch Gemeenschap Nijmegen. walaalaha dhammaan wixii fariin ah oo intaas ka baxsan waxaad noogu reebi doontaa halka hoose maaragtay maxaa la dhahaa linkskeeda. mar walbana waxaan jecelnahay wixii wanaag inaynu la wadaagno. walaalaha dhammaan waxaa idinkaga tegay
meel kastoo joogtaanba amaana allah. waa koorsadii offloading courses ayaa halkan walaalahan kala wadaagi doonaa. koorsada waqtiga baxayso, koorsada iyadoo af soomaali ku daabacan iyo english iyo luqadda dutchka ayaan halkan kusoo bandhigi doonaa insha allah. qeybta waa qeybtii luqadda hollandeeska ku baxaysay ama af hollandeeska. walaalaha soomaaliyeed dhammaan waxaa halkan ku qoran Comnar en speciale courses for Somalisch ouders om te leren over opvoeding courses van het vind van balans tussen cultuur en moderne waarden. Opvoeding courses haddii luqadda caadiga aan Soomaaliga saxda u raadiyo, opvoeding waa koorso ka tarjumaysa qaabka caruurteena ugu tarbiyeen lahayn wadamadan reer galbeedka, khaasadan wadankan Dutchka. dhaqankeena culture iyo dhaqankooda sidaan isu waafajin lahayn. ilan caruurtii guriga kula joogaan, iskuulley aadaan, iskuulka wax kale kasoo bartaan, gurigana qaab kalaa looga dhaqmaa. marka sidii laisu waafajin lahay ayaa marka ujeedada waxay tahay Comnar onze speciaal noo imaada ama noo imow af Soomaaliga speciale koorso speciaal ah voor Somalische ouders, dadka waalidiinta Soomaaliyeed. haddaada weli waalid noqona way ku anfacaysaa oo mustaqbalkaad rajeynaysaa. om te leren inaad barato over opvoeding, qaabka ilmaha looga koriyo in Netherlands. ereyga markii la fiiriyo Soomaaliga sax waa saas waay, laakiin qaab waxbarasho oo mararka qaar inay noqotaa laga yaabo. laakiin waxbarasho maxaa la baran ilmaha la korin, qaabka koritaankooda in Netherlands, wadanka Netherland. het vind van balance, si loo helo ma aragtay dee waxa oo labadaba u dhexeeya. balance waxaa la dhahaa waxa shayga markuu xuduud leeyahay kasoo qaadeen gacantaada midig markaad wax saarto iyo gacantaada bidix, ama jirkaaga waa inuu balance leeyahay ama dhinacaada u badan. culeyska waa inaan dhinac loo badin, dhinaca kalena waa inuusan liicin. marka waa wax dheelitiran waa inay noqdaan balance oo tuusan u dhexaysa cultuur, dhaqanka aan leenahay annaga Soomaaliyeed iyo dhaqanka wadanka Dutchka leeyihiin. dhaqamo gooniga leeyihin iyaga arbacada friitisay cunaan, ya gurigaa saasaa laga cunaa. bunusaq waxaa la dhahaa friitis daaq. okay an moderne waarden, iyadoo maaragtay iyo dhaqankii oo la casriyeeyey oo moderne laga dhigay. qiimaha waarda waa qiimo waay, ma fahanta, qiimaha uu ku fadhiyo. taa macnaheeda maaha in dhaqankeena waa dhaqan aan u wanaagsan, laakiin waxaynu rabnaa maadaama dhulkeeni kasoo tagnay dhulal kala nimid, caqabado badan baa nala soo kulmaya. mathal ilmahaaga yar markaad wadankii joogtay waxaa laga yaaba waryaa waxa samey haddaad tiraahdo hooyo okay, aaba okay inuu ku dhaho. laakiin kan warow kuula soo taagay maxaa loo sameynaa, meel hebela aadayna haddaad tiraahdo maxaa loo aadaa, maxaan ka sameyneynaa, su-aalo badan. marka su-aalahaas dulqaadkeeda inaan yeelano oo caruurtan aada leeda war cunuga war badana oo intaana su-aal muxuu keenay. marka waxaa keenaya waxaa way qaabka wadanka loo noolyahaa saas u samaysan. marka inaad la qabsataa loo baahan. marka walaalaha marka wax nagala hadli doono Dr. Saciid Maxamed Saciid nala jooga insha allah. luqadda Soomaali ku baxaysaa. kafeega iyo shaah waa kharatis. waxaa lagu qaban doonaa waa vaccinatorumka ama lokaasiga halkaas haddaad fiiriso insha allah. walaalkii danaynaya marka meeshaas wadanka magaalada haddaad degan tahay meeqan okay, haddaad banaanka degan tahay adoo kasoo qeyb galaa kolley taleefona ku qoran. taleefonkaas waxaa sameysaa 29 September, ma fahanta. marka waxaan rajeynaya walaalaha dhammaan inta danaynaysa ama ka faaideysanaysa. waqtiga waa 1 duhurnimo ilaa 3 intaas inta udhexaysa waay koorso waqti soconayso. waa maalin axad waa kolley dadka badankiisu iska joogaan. marka qofka rabaa inuu kasoo qayb galana adresskaasuu imaan karaa insha allah. waana lagu soo dhaweyn doonaa haddii allah awoodal yara. iyadoo luqadaha af Soomaaliga ku qorana waa idiin soo gudbin doonaa insha allah. allah idin barakeeya meel aad joogtaan.